السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي وائد السلامي مركل يا مقال كلو عصب ولا ليه الصبح نما وأنا أكسن من البدن ده في كجوكتان سودو هذا ساق وحنا وضع هدو إلهي قدره إن آيات كم إذا آيات كتاب إلهي أو هدي أخر صوته صلاة والبو واجب بجدا شيء ده كنا ذا يكاحكتو إن أدمته أوكلية قفل باوحو تعليا أو نجمد إنه معركة أدون كنا كتشوكنا للقروح بدر أو دبلآنا maalintuu aakhiro aado oo tiisa adduunka ka dhamaatay inuu jannada galo ilaahana waafajiyo ilaah wuxuu yiri qof walba adoonkeyga ah wuxuu iga niyeysto igu leeyahay lambar 1 horta aan la yamaano niyad fiican in ilaahay ka niyeysan inuu ilaahay noo dambi dhaafo jannadiisana aan galno quusta iyo dhibaatooyinka faraha badan aan maaragtay iska dayno maadaama lagu yiri wixii qalbigaaga ku jira iyo waxa qalbigaaga ku sheegay ayaad iga helaysaa hadda cadaabiga mutays aad iga niyeysatana way geeraysaa hadda janno iga niyeysato oo maaragtay qalbigaaga ku hasina janno ku gelinayana waa helaysaa ayuu ilaahay ku leeyahay marka aan niyeysan inuu ilaahay jannadiisa na geliyo inuu ilaahay noo dambi dhaafo inaan helno dambi dhaaf midka ugu wanaagsan oo jannada ah ilaahayna maalintan dhimanayno nagu arsaaqo tawxiidka qof walba oo markuu dhimanayo yiraahdo laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah ay noqoto kelimada ugu dambaysa daqalal janna yani jannadu gala ilaahana waafajiyo jannadiisana hana geliyo aayadaas aan idin sheegi doono qof walba uu yaqaana macnaheeda inaan nabada aqoon laga yaabo laakiin yani aayadahan waa loo yaqaana waa aayad weyn oo quraanka ilaahay kamid ah hadii aad salaad walba oo waajib gadaashid akhrisatana aad jannada ay ka xigis inaad dhimato oo kaliya ma sha Allah wa aayatul kursi aayatul kursi waa aayad weyn oo balaayooyinka iyo dhibaatooyinka la iskaga xijaabo salaad walba oo waajib hadaa gadaasheed akhrisatana jannada inaad gasho waxa ka xiga inaad dhimato bas hadaa dhimato saaka salaad subaxa dukatay aayad kursiyad akhristo markaad salaadii dukatay ka bacdi waa dhimatay jannada waa gelaysaa insha Allah haduu ilaahay idmo aan ku dadaalno aayad kursiga waa xijaab mar walbana waa ni sheega waa xijaabka la isku xijaabo oo hadaa mar walba akhrisato balaay isku iman karin suuratul baqara ayay kamid tahay aayadaha meelaha ugu dambeeya dhamaadka ay ku jirtaa suuratul baqara oo markii horeba mucjisaad aad u waaweyn lahayd oo qofkii dhageysta ama qofkii akhrista ama qofkii maaragtay laazimtaba ilaahay subhanahu wa ta'ala barakadeedana siinaayo kuna xijaabayo sharti iyo sheedaanka sixirka iyo balaayada dhan lagu xijaabo ay ka siimid tahay hadaa marka laasimato mir walba oo salaad waajib ah dukato hadad akhrisato oo salaada aad ka dib mariso marka salaada dukato aad ayada akhrisato waxay leedahay faa'iidadaas aad ku weyn oo ah in jannada ay ka xigto inaad dhimato oo kaliya afkeen aan barno insha Allah in akhrisano hal maran akhrinaaya qof walba waa yaqaana macnihiis dad yaqaano oo badan ayaa jira dad macnihiis garanayo iska akhrista ayaa jira balse macnahaas weyn ka badan ayaa kamid ah faa'iidooyinka laga helo in hadii aad salaada waajib gadaashada akhrisato aad jannada ay ka xigto dhimato oo kaliya bismillaahir rahmaanir rahiim الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم كليد ملهن أو بسم لكن ما سبب اللوضي وآيات كمية سورة البقرة مركا أن لا سمن إن شاء الله ونحل والبئنا أخر نسخضينه حجابنا ويتهي يعني وانا تاسونا قد فرها بدني اللي هاي hal shay aan ugu diraya insha Allah haduu ilaahay idmo dhalinyarada quseeya gabdho iyo wiilalba walaalaygiyo horta fitanta way badatay aad u badatay qof walba oo bahalkan gacanta ku haysto teleefanka uu og yahay waxa socdo maanta wuuna arkaya wiilashii iyo gabdhihii waxa ay ku jireen maanta uu arkaya
gabdhaha waa hilib bisil oo meel maaragtay cunid u baahan waaye. wiilashana waxaa ku jira qaar badan oo arxan laawayaal ah oon wanaagsanayn oo haddana hunguriga uu ka galay meel aan wanaagsanayn, inuu ka raadiyo xoolo ama kharash gabar jirkeeda qaawan, inuu video ka duubo uu ku rakaateeyo uu yidhaahdo intaasoo lacaga waa inaad isiisaa, haddii kale waxaan soo dhigayaa meelahan si loo arko oo lacag ku qaato. wax raadso oo wax cun, laakiin wax xalaala inaad raadsato maxaa kuu diiday? maxaa kugu qasbay inaad gabar walaashaada ah muuqaalkeeda ama jirkeeda intaad balaayo siiso aad balaayo ku samayso ama aad ka duubto kadibna aad lacag uga shaqayso? maxaa kuu geystay juhdigaas faraha badan iyo waqtigaas aad luminayso xalaasha ilaahay inaad ku raasto? maxaa kuu diiday? waxaan leeyahay qof walba oo dhalinyaro ah, dhalinyaronimada ay kula tagin, meela gaaraysa ma ogid. qof kastaana wuxuu leeyahay malaka mowt iyo time ilaahay ugu qoray ayuu leeyahay. qof walbaana wuxuu shaqaysto ayaa ka horeeya. haddii aad shaqaysato waxyaabaha noocaasa iyo wax aan wanaagsanayn aday kaa go-an tahay. aakhirana maahan meel sida adduunka inta dhib loo maro laga baxo. haddii aad aakhira dhib gasho waa kuu dhammaato, waa saad u gashay. adduunyada dhib walbood marto waa ka bixaysaa, waana ka bixi kartaa. oo waxaa jiro waxyaaba haddaad samayso dhibka aa uga baxayso, haddaa wixii aa ku jirto dhaqankii aa ka baxdo kale dhibkii waa inaa ka baxdaa laga yaabaa. haddaad go-aan qaadato adigoo wax aan wanaagsanayn ku jira ood ka baxda waa awoodaa. laakiin aakhiro qofka wuxuu uu maaragta ugu tago yacni wixii horumarsada ugu tagayaa. haddaa aakhiro dhib gasho waa saa u gashay, ilaahay nama geliyo. ilaahay subxaana watacaala aayaheena iyo meesha noo dambeysa meel hoogtay oo baada ilaahay kama dhigo. ilaahay maanta adduunka ka dhammaanayno oo aakhiro aan u guurayno tawxiidka ha nagu dilo, kuwo dembigooda dhaafa alla ha naga dhigo, jannatul firdowsi aclaa kuwii loo arooriyo oo la yidhaha fariiqun fil janna alla ha naga dhigo. bedelka taas waxaa ku heli kartaa inaad ahaato qof wanaagsan, wanaaga sameeya, xumaanta ilaahay oo maaragtay kaaga digi inaad ka dhowrsato. maaha inaad xumaan samayso wanaag samayso isku dhex qasto. yaa laqdabi iyo lillahi meel ma wada galaan. wiilasha arxalaawayaalka ah naxariista aan lahayn, gabdhaha jirkooda inay gataan halkaas hunguriga uu ka galay. waxaan le ilaahay xaq ha tuso. ilaahay subxaana watacaala meesha wax ka cunayaan maaragta wuu u qoray, laakiin ilaahay xaaraan ku raadi kuma uusan dhihin. gabdhaha ay soo haray, gabdhaha waxaan leeyahay hilib bisilo cunad u baahan oo meel yaalla qof baahan hadduu arka miyuu deynayaa? ma deynaayo. waxaan aad raacaysaan nimanka iimaan laawayaasha ah, arxan laawayaasha ah, walaashood aan garanaynin, qiimo ay leed aan fahmaynin, hooyadu waa gabar qiimaheed aan dareemaynin, ee aad ka dhiganaysaan soo dhaweysanaysaan. aad leedahay walaal ama saaxiib ayaan ka dhigtay, waa waxaan wanaagsanayn. sideeda bannaan saaxiib hadday gabar wiil ka dhigato wixii ka dhalan kara waa la dareemayaa. inaad wiil saaxiib ka dhigato ama aad tira asxaabaan ka dhiganayaa, waxay ka dhigan tahay in hadhow meeshaas balaayo ka imaato iyo waxaan wanaagsanayn iyo shalayto iyo qoomamo. saaxiib qofka laga dhigta ma ahan wiil. wiil haddaa saaxiib ka dhigato wuxuu wax kasta ka imaan karo. ma ahan inuu wiil wanaagsan kugu soo aadayo mar walba. dad badan way jiraan asxaab korka ah, asxaabnimadooda wax ka hooseeya ama wax ka soo sokay aysan jirin. dad ama wada shaqeeya ama wax wada barta isi salaama wax ka dhaxeeyna jirin. laakiin haddaad tira qofan saaxiib asxaab ka dhiganaya, shaah wada cabayna, maqaayadaha wada aadayna, wada sheekaysanayna, wax isku sheegayna, maxaa ka dambeeya saan oo kale in lagu wado aakhirka markii lagu soo dumo oo lagu soo jiito oo maaragta dhowr sanaan fara badan oo beena lagu muujiyo. yacni inuu wiil gabadh ku dhacdhacaynin oo kale, inuu nin dhowrsan iska dhigaayo, inuu nin wanaagsan intuu iskaaga dhigo markuu waqti badan soo jiido ee maanta ayada aan laga dhaadhici karin hebel waa xun yahay antuu wado saan oo kale balaayo antuu u qaso waxa doon uu ka samaysto way fara badan tahay. gabar walba waxaan leeyahay haddaa adigu dhowrsanaa weyso saaxiibaan ahay iyo asxaabaan ahay iyo balaayo liiga duubay iyo maca waxay kuu taraysa lama arko. inaa maalin walba tiraahdo muuqaala liiga duubay ama waa liigu rakaateeyey ama xoolo iyo in badan fara badan liiga qaatay ama wiilal badan ayaa maaragta muuqaalkii liiga duuba daraadiisa aan waxaan u sameeyey wax fara badan oo ilaahay uusan raalli ka ahayn si aan loo faafin muuqaalkaas. dembi haddaad gasho dembi kale ha ku darin.
waaba gasho waa ku dhacday, laakiin dembi ku gud ama dembi ku qari ma suurtagelayso. qasab waxaa ah maalinta dembi ama video lagaa qabto haddii lagu dhaho videogaasaan kaa hayaa, wax alla waxaan rabo waa inaa ii sameysaa, haddaa kusii dhiirato oo aa wax kale sii sameyso inuu sakiina asturnaanaynin ee banaanka lagu soo dhigaayo. waayo waxaa ilaahay raalli ka aheena markii hore ku dhacday, haddana adigoo miirkaaga tamaam yahay ayaa kuna noqonaysa si ceebtaas ay u asturanto. ilaahay subxaanahu watacaala ceebteena ha asturo, ceeb ma asturna. maanta wax qarsan ma jiraan. gabdhihii maaragta faraatanka saxsasa loo wareejina iyadoo video laga duubay, iyadoo wanaagsanayn, iyadoo qaawan oo video laga soo duubay. marka horeba haddii ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sameeyey wixii wanaaga uu noo sheeg aanan ka leexa lahayn kama dhacdeen. haye wayba dhacday. markay dhacdo haddaad tidhaa ka war xumaantii baan xumaan ku gudayaa ama stresskii iyo dhibaatadii iga raacday ayaan banaanka isku soo dhigayaa oo waxaan sameynayaa wax aan farxad ka raadiyo ama wax aan wanaag ka raadiyo ama maaragta si markii horeba yacni dhibaata igu dhacday aan stress kaga baabi'iyo. stressna laguma baabi'iyo dunuubta, farxadna lagama helo, waxaa laga sii helaa waali iyo wax aan wanaagsanayn iyo in aad kasii tagto meeshii aad joogto meel kasii dheer. marka mar walbood aragto qof xumaan ku dhacay ee xumaan kusii gudaya, yacni wuxuu tallaabay xaduud ilaahay ugu talagalay oo markii horeba la yiri meeshaan ha dhaafin ayuu tallaabay. markuu tallaabay shaydaanku wuxuu yiri meeshaan waaba gasha maahano maxaa kuu yaala, iska sii gal, si fiican u sii gal badda ayuu ku leeyahay. shaydaanka waa cadow. qof walba oo shaydaan la tagayna meesha ilaahay ugu talagalay oo ilaahay maaragta uu u sameeyo qof kasta uu ogyahayo dee ilaahay wuxuu yiri qofkii shaydaan raaca yaa oo awaamirteeda jebiya waxaan ugu talagalay meel naga aarsado. marka walaalay waxaad ilaahay meel buu joogtaan, ilaahay subxaanahu watacaala hana xifdiyo, hana noo naxariisto. marka u horeysa laakiin meesha aad is dhigto ayaa taalaay ogaaw. ri walba waxaa la yiri meeshii lagu bireeyaa meeshii is dhigtaa lagu bireeyaa. gabar walba haddii meeshii is dhigta iyada maaragtay ay taalaa. haddaa wanaag iyo qiimo isku yeesho, qiimahaaga aad ogtahay, sharaftaada iyo wanaagga ilaahay kuu yeelay aad ogtahay, meel kasta oo xun kuma dhicaysid. laakiin haddaad tahay waxaan wanaag lahayn, qiimo aan lahayn, intaa nin xun oo danyuusa qalbigaaga siido markuu birita kugu daadiyo hadda waxaa soo baxa jaceylkaaga tijaabi iyo waxyaabo aan jiri jirin. yaa qoftii oo ninka iskala socota waxba aan ogeyn ayaa waxay leedahay maanta ha lee tijaabiyo. markaasuu leeyahay heblaayo gabar leedahay aan la socdaa ama aan jeclahay ama mustaqbalka danta midda aan kale taas waaye. midaan waqti badan laga soo lumiyay hadday rabto waxyaabo badan ay soo sameysay oo qofkan ay soo sameysay waxay isleedahay uu ku jecel yahay mustaqbal fara badan oo maaragtay waxay ka leedahay wanaagsan ay ka leedahay. laakiin asaga mar haduuba ka helay yaa dantul uu ka gaaray way uga dhamaatay. weyniyay markaas inay jabaysaa. markay inay jabto ayaa adduunka cariiri ku soo noqonaya ilaa waxa ilaahay raali ka eelay sameysay. inta markay ku dhacdo meesha ilaahay loo carari lahaa waafajinta ilaahay baa iskale. hadduu ilaahay ku waafajiyo wadada u caraleed wanaagsan, haddii kalena waa tan inta dharka la dhigto la isxirxiro meebel soo dhigo iyadoo la leeyahay farxadan raadinaya. farxadda lagama helo ilaahay macaasidiisa, balse waxaa laga helaa ilaahay waxa uu raali ka yahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga. qofka dambi uu gali karaa, bini aadamka oo dhan dambi uu galaa. waxaa ugu wanaagsan qofka dambigiisa ka soo laabta, isxasuusta, ilaahay u soo carara unbaa wuxuu helaa wanaaga iyo farxadda iyo meesha laga helo qofkaas hela. waxaad leeyahay meel buu joogtaan walaalahayga, ilaahay hana xafido, ilaahayna tawxiidka hanagu dilo, aan ahaano kuwa mar walba akhrista adkaarta iyo aayad kursiga si ay u yeeshaan xaduud iyo maaragtay yacni kuwa aan jebin wixii ilaahay uu awaamirtu ilaahay uu yiri hala sameeyo. ilaahay dusha naga saaro kuwa aan jebin saa u ahaano, aan mar walba ahaano dad afkooda digriga ka qoyan yahay, dad afkooda xil walba waxa ka soo baxay u kontroolan yahay. ha iska ahaanin qof iska hadla sidii raadi bateer la geliyay la daaray laga tiga camal. ha iska ahaanin waxa ka soo baxa ku kontroolaadaan, waxa ku hadlayso afkaaga iyo maskaxdaada iyo qalbigaaga hay soo gaadaan. qof iska hadla ha noqonin, qof qiimo la'aan ha noqonin. haddaad qof iska daldalmo qof aan qiimo lahayn. video yani ugu sii badin walaalay meel buu joogtaan subaxnimo wanaagsan. qof walba wuxuu shaqaysto way ka horeeyaan ha ogaado. adduunyadan aad u jeedaan qof walba camal buu kala tagayaa. ilaahay camalka aan kala tagno ha nooga dhigo mid aan jannada ku galno, mid ilaahay noogu naxariisto, mid ilaahay raali ka yahay. ilaahay ha nooga dhigo balliqu canni walow aaya.
qof walba waxaa waajib ka saaran yahay wax yar uu garanayo oo ilaahay diintiisa ah inuu saxakranin qofku isleeyahay way anfacayso oo u sheeg adiga qofku doonto ilaahay uu ku anfaco qaadanaya qofka rabina uu ka tagaya waxaad ilaahay meel boo joogtaan subaxnimo wanaagsan like iyo share iyo comment waa xageena fikradaha wanaagsan oo ka guuxaya oo qalbigaaga ku jira iyo waxyaabaha is leedahay qof wax ka bedeli karaan hana heesanine nala soo wadaag si dadkaas masaakiinta ee murugada meelaha kula jira markaad tiraahdo fursad ayaa kuu dhiman waqti ayaa kuu dhiman sidan samee ee farxad u helaan ee hore ugu sii socdaan ee murugada uga baxaan oo isku dhahan alle waa sax waqti iyo fursad kale ay dhiman maadaama saaka anigoo caafimaad qaba aan soo kacay ilaahay waxay ka dhiganta asagoo fursad isiisay isku dhahan ha xaasidin talada iyo maaragtay waxyaabaha wanaagsan la isdheer yahay ayaa la rabaa in la iskaga faa'iideeyo qofku maaragtay fikrad iyo wanaag uu dheeryahay inuu qof kale u sheego inuu yiraahdo anaa wadadan ku soo gubtay ka leexo ha ku dhicin ama aniga midaan ku faa'iiday oo maaragtay hadda ka hor noocaas nagu faa'iiday halkaas laga baxo inuu yiraahdo laga rabaa waxaad leedahay subaxnimo wanaagsan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh